ووحي صومالي كدحيي maanta la yiraahdo dawlad dhexe oo aan garanaynin policy-geedu aan shacabka u shaqeynayna ka shaqeynaysa in intii lagu xidho ay noqoto in wixii si walba loo waayo macna ma sameynayso wadankan waa federal dawlad central iyo unitary system waa horan ka nimid states baan nahay waxaan rabnaa dadka waxa la bixinayo inay toos u gaadhaan sababtoo shay walba waa la siyaasadeeyay mar haddii la siyaasadeeyay bal waaga ay la helo dawlad siyaasadii ka soo noqoto ilaa dawladani waxay u tahay haab inay wixii soo gaaray iyadu isteediyada u dirto ay qaybiso kala faraha kala baxdo laakiin haday noqoto inay iyagu maamulaan inahay annaga mas'uulka annaga maamulayna annaga noo xiran tahay wadanka oo ixtikaar iyo wuxuu galayaa cidhiidhi taas daraadeed waxaan rabaa inay hay'aduhu ogaadaan inay cid walba siday tahay ula macaamilaan maanta dawladda dhexe wax kasto state-kan uu lahaa oo shaqo ahayd oo aan xuquuq u lahayn way joojiyeen way siyaasadeeyeen sida iyagu rabaan bay u dhigeen taa macnaheedu waxa weeye annaguna inta dawlad Soomaaliyeed oo hawsha aan isugu nimaadna la helayo ma doonayo hay'aduhuna inay noo soo maraan wax nagala dhexeeyana ma jiro umana aqoonsani maanta dawlad Soomaaliyeed oo dala Soomaaliyeed ka shaqeynaysa inay xamar ka shaqeynayso shirkad aan maanta garanaynin waxa ay dawladnimada ay ku dhisan yihiin waxay tahay Soomaaliyana doonaya inay burbur iyo inkaar iyo halaag iyo hoog u horseedaan yaa maanta ka shaqeynaysa taas marka waxaan rabaa hay'adaha waxaan mar labaad u sheegaynaa mar haddii la siyaasadeeyay dhaqaalihii mar haddii la siyaasadeeyay horumarkii mar haddii la siyaasadeeyay wixii shacabka taabanayay waxa annaga ay mas'uuliyaddu naga saaran tahay waa shacabka waxaan u danaynaynaa waa shacabka cidda xaqa u leh waxaan laga hadlayo ee la caawinayaa maanta hay'adaha horteeda fadhiyo dhan kulligood waxay caawinayaan oo garab taagan yihiin waa shacab Soomaaliyeed shakhsiga Axmed iyo mas'uuliyaddu ayana ma aha qola xamar joogtana ma aha taa macnaheedu markay sidaas tahay haddayna wixii dadkii gaarayna waa caqabad kaliya waxay leedahay mushkilad kale marka taasna saasaan rabaa inaan si cad u sheego waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga cid kasta oo maalgashi sameynaysa waxaan diyaar u nahay hadday loo kale u sameynayaan iyo hadday dhoofinayaan iyo hadday warshado sameynayaan iyo hadday maraakiib la imanayaanba inaan diyaar u nahay as Jubbaland inaan lala heshiiyo la siiyo ruqsadaha kala shaqeyno